عليكم ورحمة الله وبركاته maanta casharkeenu wuxuu ku saabsanaanayaa sidoo kale Excel-ka oo ka mid ah MS Office-ka marka waxaan ku tusayaa maantay product ID number alaabta mataqaanaa product ID numberkeeda alaabta mataqaanaa ID numberkeeda iyo price-ka marka waxaan rabaa hadeer datadaas waxay u taalaa sidii rows-ka sidii loogu bedeli lahaa mataqaanaa columns oo sida jiijiibka ah marka hadda waxay tahay datadan waxay u qoran tahay mataqaanaa rows-ka marka rows-ka waxaan rabaa inaan ka bedelo to column marka product ID numberkeedu waxa waaye alaab kasta waxay leedahay ID number oo lagu garto khaas u ah iyo lacag gooniya marka hadda alaabtaas ID numberkeedu waa taa 414452 ID numberka waaye alaabta dhan waaye tanna waxa waaye lacagta qiimaheedu ah dollar ahaan $28 $45 marka price-ka qiimihii oo datada dhan waxay u qoran tahay si rows-ka marka datada rows-ka waxaan rabaa si inaan ugu bedelo columns marka waxaa leedahay si columns ugu bedelo ayaan rabaa marka sida loogu bedelo ayaa maanta baranaynaa bismillahi raxmaani raxiim waxaa leedahay marka falaartaas aa wareegaysa halkan geenaysa marka halkaas aa u geyso waxaa leedahay control shift arrow right baa leedahay danna down baa leedahay markii inta highlight ku noqoto blue waxaa leedahay right clear dan waxaa leedahay copy marka copy dada meeshan cilada ayaa imaanaysa meeshan cilada hadda number 5 oo kale ayaan jooga meeshan 5 marka tagto ayaa leedahay misna right clear marka right clear aad dahdo misna waxaa leedahay basti special baa leedahay meesha ku qoranta basti special baa ku dhufanaysaa marka basti special aad ku dhufato misna waxaad tagaysaa meesha ay ku qorantahay transpose meeshaas aad click leedahay oo mataqaana xariijinta saxda saaraysaa markaas waxaa leedahay okay hadda waa tan daatadeeni xaggan ayay timi daatadii awal waxay ahayd awal daar way jiifta hadda tan waa columns waa iyadoo mataqaanaa sarajoog oo kale ah hadda waa taa haddaan rabo inaan kor keeno waxaan samaynayaa tan ayaa iska dhigtiranaya tan waxaa leedahay control shift right then down dan waxaan leeyahay delete iska dhigtiranayaa oo total aa leeyahay dan delete ayaa yidhi hadda iska dhigtirayay marka tana soo qabsanaya tana soo kaxaysan tana kor keensanaya waxaa leedahay control shift down right baa leedahay waxaa leeyahay cut baa leeyahay waa soo jarayaa halkan kor ayaa keensanaya kor ayaa keenaya halkan aa leedahay tan halkan waxaa leedahay paste hadda ayadana waxay ahayd daatadu mataqaanaa iyadoo mataqaanaa waxay ahayd rows-ka way jiijiiftay marka hadda waxaa ka dhigay si column ayaa ka dhigay daatadii waa tan product ID-ga halkan uu noqday price-ka xaggan marka waa so simple aad buu fudud tahay intaas oo maanta casharkeenu ku saabsananaya haddaan sameeyo mar labaad inaan ku celiyo hadda columns bata waxaan rabaa inaan ku celiyo mar labaad rows ugu celin lahaa marka waxaad samaynaysaa just on halkan aad tagaysaa markaad tagto control shift arrow down baa leedahay danna right ayaa leedahay markaa saas dhahdo waxaad leedahay control waxaa leedahay right baa leedahay right markaa dhahdo copy bay leedahay markaa copy dhahdo dan meel cidla baad tagaysaa meesha cidla markaad tagto waxaa leedahay right click ayaa leedahay right click markaa dhahdo waxaad tagaysaa bast special post ayaa leedahay bast special post markaad tagto dan waxaa leedahay transpose baa leedahay transpose markaa dhahdo okay ayaa leedahay haddana waxay noqotay si mataqaanaa rows ayay noqotay awal adeer waxay ahayd mataqaanaa columns bay haddana waxay noqotay rows markaas intaas oo casharkeenu maanta ku saabsanay waa so simple waaye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh